بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada waa casharkeena imtixaanaha luqadda PHP ee ku saabsanaa PTO PHP data object casharkeena ugu dambeynay waxaanu soo qaadanay habkan la dhaho query method inaga oo datadii kala soo dhex baxnay database-ka habkeena labaad aynu isticmaalayna waxa weeye fetch method aynu isticmaalnaa waliba isaga oo qaybo fara badan ah so intan ayaynu copy garaysanaynaa copy ayaynu leenahay new file ayaynu samaysanaynaa waxaanu u bixinaynaa save waxaanu u bixinaynaa fetch ayaynu u bixinaynaa fetch.php so intan ayaynu kusoo paste garaynaynaa hadda toos wuxuu ii geynayaa browserku fetch.php adigu haddii aadan fetch joogin waxaan halkan ka doonaysaa fetch.php so waxaa sababaya editorkan ayaa sababaya so failkeeni queryna waa inoo jiraa halkan ayaynu markaa bedelaynaa waxaan leenahay while row ayaynu soo qaadanaynaa row ay la mid tahay arday querygan arday query so waxaan isticmaalnaa hab la dhaho fetch oo ka bacdina waxaanu ku xidhaynaa practice-kaas ayaynu ku xidhaynaa so safe ayaynu leenahay bal maxaa isbedelay refresh waxba isma bedelin sababtoo ah waxaanu isticmaalanay while loop haddaynu wax qaladno oo tusaale halkaas oo kale khalad ka dhigno oo safe garayno rowga oo kaa ciladahaas ayaa soo baxay row ma garanayno so safe ayaa leenahay so markaa isticmaalaysid qaybtan ah fetch waxay usoo saaraysaa xogtii siyaabo kala duwan haddaynu intan comment ka dhigno oo aad taabit control iyo forward slash aynu dhahno fardam haddaynu dhahno waxaa soo saartaa rowga maxaa ku dhex jira horta kabacdina safe garayno wuxuu noo saarayaa waa kan xogtii oo ah iyadoo ah numeric array iyadoo ah weliba associative array so marka xog badan isticmaalaysidna run ahaantii tan aad bay u adag tahay weliba waxaanu ku samayn karnaa pre ayaynu ku samayn karnaa echo si aad si fiican ugu aragtaan so safely okay array laba jeer ayay soo saaraysaa midkiiba marna waa associative array marna waa numeric array haddaad doonaysana mid gaara isticmaashid oo tusaale ahaan ama numeric array ama associative array halkan waxaa kusoo daraysaa PDO fetch assoc okay wuxuu soo saaray haddeer as arrayga wuxuu soo saaray as numeric associative array meesha waxaa ka baxay kii nambarada ahaabaa ka baxay haddaad inta waxaa dhahaysaa fetch nam ayaa dhahaysaa si associative-ka uga soo saartid oo numeric array uga dhigtay safe dheh haddeerna muxuu noqday numeric arrays ayuu noqday so labadaba waa isticmaali kartaa fetch both ayaa jira oo labadaba ah ayaa jira isna oo labadaba soo bandhigaya so waa ka hadda dhitadii waa aragtay inay intii hore ka badatay halkan waa magac marka horena halkan magac wuxuu ka dhigayay xuruuf ayuu ka dhigayay so qaababkaas oo dhan waa usoo saari kartaa xogta adoo isticmaalaya fetch both fetch all iyo fetch both safely ka xogteennii oo ka aad iyo aad ayay umahadsantihiin casharkeena ku xiga waxaanu eegaynaa fetch all oo iyana ka mid ah qaabka looga soo saara database-ka xogta